بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan asxaabta ku taxan janaalka Ibra Solution kusoo dhawaada mar kale casharadii imtixaanaha ahaa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada sare iyo hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya. Maanta insha Allah hadduu alla raalli ka noqdo waxaan duubi doonaa imtixaanka luqadda carabiga fasalka form 4 waana boobsiinaynaa insha Allah hal video inaan kusoo koobnaa rabnaa. Qaybta koowaad waa gabageli su-aasha koowaad jawaabteeda kaliya baa sheegi doonaa si aan waqtiga u baaqaamino. Su-aasha koowaad jawaabteeda waxaa waaye xilliga uu bilowday casrul xadiis casriga lagu magacaabi jiray wuxuu bilowday jawaabteeda waxaa waaye ba oo ah 1978. Su-aasha labaad ninka iska leh beydkaasi qum lilmucallim waqih tabjiilan waxaa iska leh jawaabteeda waxaa waaye alif oo ah Axmed Shawqi. Kelimada ulidka ku ah kelimadan meeshan oo qoran oo ah xasimey jawaabteeda waxaa waaye alif waaye. Su-aasha afaraad ayadan noo qoran haddii aan fiirino balaaga ahaan haddii loo fiiriyo jawaabteeda waxay noqonaysaa jiin waaye. Su-aasha shanaad yaa baalibul cilm beydka meeshan oo qoran jawaabtiisu waa tawkiid waa macna ijtahid tawkiid lafdi waa deel waaye oo ah at-tawkiid. Su-aasha lixaad mafcuulka cibaaradan ku jira waxaa waaye ba oo ah maxbuuban. Sidoo kale waxaa usoo gudubtaa su-aasha toddobaad kelimadani waxaa laga soo dhex baxsaday kalimatul istishraaq waxaa laga soo dhex baxsaday jawaabteeda waxay noqonaysaa jiin waaye. Su-aasha sideedaad almukaatabaat isimkaasi wuxuu noqonayaa jawaabteeda waxaa weeyaan deel oo ah jamcaas wuxuu noqonaa jamcul muannas saalim jamc waaye macnaha almaktabaat. Su-aasha waxaa usoo gudubtaa oo sagaalaad kelimada la macnaha ah kelimadan meeshan oo qoran waxaa weeyaan su-aasha sagaalaad jawaabteeda waxaa waaye waa jiin waa macnaha. Su-aasha tobanaad mushabbaha ku jira jumladani waxaa weeyaan waa alif oo ah alcilmu. Su-aasha kow iyo tobanaad nactiga ku jira jumladani waxaa weeyaan waa deel oo ah alwusda. Sidoo kale su-aasha laba iyo tobanaad waxaa waaye su-aasha laba iyo tobanaad jawaabteeda waxaa waaye markii la qoraayo warbixinada risaalooyinka markii la qoraayo qofka wax diraayo magaciisa wuxuu ku qoraa waxaa waaye jiin waa sax waaye nihaayatu safxati jiin aad ku geline. Su-aasha saddex iyo tobanaad wuxuu ka mid yahay shicirkaani ashicru lghanaa'i sax waaye likownihi aanshihiisa jawaabteeda waxay noqonaysaa su-aasha saddex iyo tobanaad ba ay noqonaysaa yartabitu bimashaaciri linsaaniya waaye. Su-aasha afar iyo tobanaad aladiina yabni wayarbi anjiil waxaa lagu magacaabaa midkaasi barbaariyaha ah waa iska garan kartaan waa ba oo ah almucallim waaye. Su-aasha shan iyo tobanaad
waxay soo diratay dowladda si uu u indho-indheeyo. Jumladan oo kale waxaa loo yaqaanaa jawaabteedu waxaa weeyaan su-aasha marayna waxay ahayd su-aasha 15aad. jawaabteeda waxaa waaye waa alif oo ah almujaaz almursal loo yaqaana qofkaas camal oo qaabkaas loo soo dira. su-aasha 16aad waxaa lagu magacaabaa itifaaq awaaqir الجمل في الحروف في القرآن يسمى. jawaabteeda waxaa weeyaan da oo ah alfawaasil. su-aasha 17aad mafcuulka ku jira jumladan waxaa waaye alif oo ah thulathiyun. العبارة الوقت هو الحياة تدل على. jawaabta ku jirto waxaa waaye mithaalkani ama tusaalahani. jawaabta ku jirta waxaa waaye su-aasha 18aad ba oo ah in alwaqta huwa cimaadu sayr الحياة. su-aasha 19aad jumladan maxaa la qoray aasaaska ciidamada si loogu maamulo masaalixda dowladda iyo shakhsiyaadka. qaladka ku jira jumladan waxaa waayaan jiin oo ah qada'un fil macnaa. su-aasha ugu dambeyso gabagabada واحد مما يلي ليس من المكونات كتابة السيرة الذاتية. jawaabteeda waxaa weeyaan jiin oo ah sixatu shakhsi. arday qaybta koowaad waa ka baxnay oo qaybta labaad ayaa gelaynaa. qaybta labaad saa u jeedid waxaa waaye waa su-aalo toos ah anoo qoran. su-aalahan tooska su-aasha koowaad waxaa lagu dhaha waxaa sheegtaa 4 ka mid ah xuruufta loo yaqaano xuruuful jar ama xuruufta wax hoos dhigto. xuruuftaas waxaa ka mid ah arday min a ka mid ah, ilaa a ka mid ah, can a ka mid ah, calaa a ka mid ah. min ilaa can calaa. ama sidoo kale waxaa dhihi kartaa min ilaa fi calaa waa dhihi kartaa. saartid ada keliya 4 xaraf aa laga rabaa. min 4 xaraf ee ugu horeysa ka soo qaado min iyo ilaa iyo can iyo calaa. su-aasha labaad waxaa lagu weydiiyey mal calaaqatu almujaaz almursal fi aaya. aayadani waxaa laga rabaa calaaqada ee leedahay mujaazka mursalka ah aayadan oo qoran was'al qaryata allatii kunna fiiha. mujaazka mursalka ah ku jira aayadani waa maxay calaaqada ee la leedahay. waa micnaha calaaqada ee la leedahay waxaa loo yaqaanaa almaxaliya loo yaqaanaa almaxaliya loo yaqaanaa. sidoo kale su-aasha labaad soo gudubno. su-aasha labaad waxaa waaye maa huwa almukaniyu canhu fi cibaara luqati lat.
Su-aasha saddexaad jawaabteedu waxaa weeyaan اللغة العربية waaye. Su-aasha afraad كيف ساهمت الحملة الفرنسية في النهضة الأدبية. إذا أفر درجة saaran jawaabteedu waxaa waaye إيقاظ الروح الوطنية في أرواح الناس والحث على طلب المعرفة. خلاص معناه إيقاظ الروح الوطنية في أرواح الناس والحث على طلب المعرفة. su-aasha shanaad waxaa waaye waxaa lagu qoray beyt فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منهن كوكب. ما غرض التشبيه في هذه البيت. تشبيهها كجرا جملة دان sheeg ujeedkiisa. جملة دان تشبيهها كجرا waxaa weeyaan هو waxaa waaye تزيين المشبه وبيان حاله. تزيين المشبه in la qurxiyo mushabiha وبيان حاله in la cadeeyo xaaladiisa. arday insha Allah waxaa ku arkaysanayna qaybtaani insha Allah video xigo insha Allah waxaa sameyn doonaa su-aalahan iyo jawaabahood waa soo qoraalkooda insha Allah iyo su-aalaha ka dambeeyaba iga qoran si waxaa laga yaabaa ardayga ama qofka maqlaayo inuusan micnaha oo uusan fahmin laakiin markii oo qoraalka uu arko laguna dhawaaqo way kasii yara fududaasaan insha Allah. aad ay u mahadsantihiin daawashadiina.